حال وبد بادية عقبة بن عامر أي النبي قوي عليه الصلاة والسلام وحكول يا رسول الله من نجاه محابة بادئة حديث كإمام الترمذي باورين يا شيخ الألباني والصحيح بيقولي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله من نجاه كيف ننجو من عذاب الله بالليل إلهي عذاب كيس سانو قبد بادنا نبي حكول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك عرب كاغا هيسو كنترول وشيكينا وورنا وهذا الله ووضنا كورنا دي آخر الله انت اللي يماد واحد كو هاد ليسون لحسابنا هدا دكتين لحسابنا سو هذا كمات كنتروشين نبي محمد وحلي بدباده هدا دونيسو عرب كاغا هيسو غوريغاغونا هكو قاضو dadka kale iyo inagu waxaynu ka waranaa hebel baa waxa sameeyay dawladda halka ka boodisay hebel baa waxaday kan baa saan yeedhayba wadaad kan baa bidco la noqday halkan baa ka baxday cid kale la sifeeya nabi maxamed wuxuu leeyahay wabki ala khati'atik nin kale tiisa inta dilowda aakhira lagu oran maayo kuwa ka waran koogiya wax lagu weydiinaya adiga ya akhtaadadi nabi maxamed wuxuu ku yiri hadaad badbaado doonayso wabki ala khati'atik dambigaaga la ooy طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته ولذلك نبي وحط الماما يانك أوية إلهي درتي وأوية إنه كم يكوى إلهي سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن كقوة هرسنة يمال انت بدبادية وحنبي قلت الماما يكوى النار تكبد بادية حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لا بد حديث به صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار توح كم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بدبادده انت تهدوا إلى هيدي ندمك أويدوية ولذلك بقى حل إلى هذا دad keena kan rajada inuu ugu badan inagoo aan camal bahaynin saalixiintu laakiin cagsiga yahay iyagoo camalku ku badan yahay ayay hadana cabsiduna ku badnayd Abu Bakar sawmada nabi Muhammad kii u fadli badna maaha ayaa intuu ooyo oo istaaga oo carabka isku dhago ayuu wuxuu oran jiray hada alladhi awradana almawarid wa kan kameel xuniga tuuray wa Abu Bakar أبي بكر أنتو سلاد يسوع تقصد قوري عن دقاق بالليل أبي بكر أنتو يا سلاد وتكريو أين أنت ستراد إله رسول كيسي أبو بكر دتك إمام هاو غندقين ويا كثرة البكاء أو أنت ستربدني ديسة عندما مغلم يسول لا تكرم مايو وأبي بكر كي عين كاسة أويا عمر ما أنت مديد الله جليي أو جريون دونه صلاة سجودة تكينية أيام مدلة قلية جبت تنور داعي إن كيس عبد الله يا ويمي ومدح به عيد أنت وقروا قاضي أيو نبتي صار عمر باو حكولي ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني عمر بن الخطاب بين كيس الله ضي وحليه ويحك وإريان هبار هين لغة عربية لكن معناها بحين كره لكن أنا لا أورنين مرك الله هبار تمايو وردا بنك يقدر كاسكدك بيده وحبر دبت هذا خسارينه عيد عيسى إن ربي جاي إن حرست بولي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي بولي هوق باني هويبا وسقنادي ما هويداي با هوقتي هدي ان ربي جاي نحريسن يعني ولا عذابيه عمر باكو هلان هلا يكو ليتني كنت منسيا له تبني انت صامر بل ما انقريغاسو كلا هذا تلماميه وحال يرادا وجيgiisana ilmadu laba leen oo madow bay kula hayd bay yiraahdaan Umar marka wajigiisa la eego sidoo ilmeynayay أي علامة كسم اسمه عثمان بن عفان
ayay xabaal dul yimi markaasuu ooyey oo ilmadu garhka ka dareeraysaa wuxuu leeyahy low annanii bayna aljannati waannaari laa adri ilaa ayatuhumaa yu'maru bi haddaan janno iyo naar dhex taagnay oo aanan garanaynin labada mid laygu tuuri doono waxaan odhan lahaa ilaahu ciidiga dhig ma sabreen naarta ah muuqaalkeeda waa rijaalkii casharati almubahin waa kuwii ugu mudnaa muslimba kuwaynu ka warramaynaa nebi maxamed baa laabtiisu ka asiiri lmirjal ama libaaxu sidii u guuxayey isagoo ilaahay u tukanaya subxaanahu wa tacaala ama dherigu siduu u kudhkudhleeyo u kudhkudhlaa dheriga marka dabka la saaro ee biyuhu islaba rogaan u qayliya wuu sanqadhaa laabta nebi maxamed baa sidaasi u sanqadhaysay cabsi ay rabbigood ka cabsanayaan subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisa mucaawiya ayaa waxa uu yimi nin diraar la yidhaahdo oo ka mid a raggii cali taageeri jiray markaasuu yidhi war cali ii sifee wuxuu yidhi cali kuu sifeeyeye markuu waxyaabo ka soo warramaybu wuxuu yidhi wuxuu ahaa nimaan adduun hunguri haynin oo habeenka madowgiisa weheshada oo ilmadu dareerto oo cunno inteeda adag kaga gaabsada marana inteeda gaaban ka xidha midkaaya markuu u yimaado buu yidhi soo dhoweeyo naga mid ah laakiin weynayn iyo cabsi aanu ka qabno haddana aanan la hadal waxaan ilaahay uga markhaati kacayaa buu leeyahy inaan arki jiray habeenka madow goortay xidiguhu dhacayaan caloo ooyaya oo gadhka ishaya oo ilmadu dareerayso oo sidii nin bahalqaniinay oo kale u ooyaya oo le yaa rabbana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayoo leh adduunka la hadlayo ilaya tacaradat ilaya tashawafat ilayi tacaradti adduunow maanaad sukay soo bandhigtay maanaad sukay soo muujisay aniga kayrkay kadi saddex baan ku furay leh cumrigu waa gaaban yahay majliskuna waa mid liita khatartaaduna waa yartay adiga yacni waa lagu sabri karayaa ooyaya diraar baa wuxuu leeyay waxaan eegay mucaawiyahan u warramayey oo isna ilmad u dareerayso yacni saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen kuwaasi uu nebigu ku lahaa kun fi dunyaa kaannaka gariibin aw caabiru sabiil kaannaka gariibun aw caabiru sabiil war adduunka ku ahaada sidii mid jid goynaya ama gariib ku ah waa kaa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam war ninka hamigiisa oo dhan mid qura ka dhiga buu leeyahy nebigu ilaahay humuumta kale isagaa kaaga filaanaya haddaad adigu hamiga aakhire isugu geysa baa lagu yidhi oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid oo raganimadaada iyo taladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahannimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso adigu aakhira ay tahay meesha xooggaagu aad ku maqan tahay ilaahay baa kaaga filaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka hadduu hamigaagu naar iyo janno yihi ilaahay baa kaaga filan inta dambe amaa hadduu hamigaagu adduunka noqdo taa aad ilowdo ilaahay dan kaama laha baa la yidhi dooxooyinka dunida iyo hamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye kay kaaga boodayso ilaahay dan kama le baa la tilmaamaya qofka hamigiisu noqdo war aakhiro saad u dhaqaaqi nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhayaa ma dhaqaaqi kartid su-aalo shan ama afaraad oo ka jawaabo mooyaane waa taagnaanaysaa qofka ka fekeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay cimraa lagu siiyee saad u isticmaashay wakhtigaagii dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war cimrigu isku mid maahayna intii dhallinyaronimadii xoogga aad lahayd xaggaad ku bixisay
dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane war waxaad xoolo shaqaynaysa xaggaad ka keentay ma xaaraan bay ahayd mise xalaal dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane xaggaad ku bixisa dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabatay aqoontaadii mid adduunya mid aakhira ha noqoto ma ilaahay bay kuu hoggaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ma dad baad wax ku tartay mise waad ku xoogsatay uun ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo taa maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo wuxuuba ma xoogsay kaa ahayd una waad ku xoogsatay mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin si aad uga fakartaa bay ku xidhantay haddaad fursadda haysataa waxaana la tilmaamay ilaahay inta lagu hortaago inaad sida birta u ribdhanaan doonto aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aad badbaadi iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aad halaagsami jawaabtaad kuwan ka bixisaa bay ku xidhantay ayuha alikhwa waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo oo aan camalkeennu ku filayn marnaba janno oo aan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno oo nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam midkiinna camalkiisa janno kuma gelayo walaa adiga bay ku yidhaahdeen walaa anaa buu yidhi in ilaahay ugu naxariista mooyaane laakiin istijlaabu raxma baa loo baahayay ilaahay naxariistiisa saad u keensanaysaa saad ugu biiri lahayd kuwa ilaahay u naxariisto ilaahay oo waan kaa cararayaa iyo i naxariisamaya macquulti ilaahu waktigayga wax kalaan ku bixinayaa i naxariiso ilaahu kuuma jeeda i naxariiso ilaahu naar ka baqi maayo i naxariiso ilaahu jannana dooni maayo i geli u xoogsan maayo i geli waa qaldantay waxa saxay waxa weeyaan ilaahu cadaabkaagaan ka baqayaa iga badbaadi ilaahu jannadaada hunguri iga hayaayo igee laakiin camalku uu jiro walidaalika ayuha alikhwa aafadu xaggay ka timi marka maxaa keensaday dadku iyadoo naar la ogyahay in la seexday iyadoo guriga kugu xiga uu gubanayo inaad ma tidhaahdo waa seexanaya maxaa keensaday iyadoo janno lagu yaboohay inaad ka seexato maxaa keensaday waxaa keensaday bay culammadu yidhaahdaan waa dacfi aliimaan biاllahi walyowmi alaakhir waxaa yaraaday dadku rumaynta ay rumaysan yihiin aakhiro iyo maalinta qiyaame rumaynta loo jeedaa waxa weeyaan waa inay waxani ku hor joogaan oo ad imanka arkaysaa noloshaadoo dhan waa inaanu kaa libdhin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaan aakhira kaa libdhin goormay libidhaan awqaatulgafla hadday tiro badato hadday mooganaanta iyo dhoohanaantu kugu badato qofka had iyo goor danseegaa maxaynu nidhaahnaa waar waa mid caqliga laga daboolo dantiisaba ma yaqaan wax kaloo iskaga mashquuliyi waa hadda mid in yaroo shaqo ay ka hilmaamto oo ka luntay ama waxoogaa yaroo lacaga uu soo qabsan lahaa ay ka luntay ayaa dadkao dhami canaananayaan waxay leeyiin war waa bahal dhaandhaana waayo dee intaasay u jirto wuu qaadan kari waayey shaqadii intaasay u jirto wuu qabsan kari waayey dukaankiisii intaasi u jiro wuu kaasaynu wada canaanana kaa iyo iyomaa dhoohan ninka naar iyo janna sugayaana aan ogeynba keebaa dhoohan keebaa haflo ku jira haflada tani waa iimaankii aakhire iyo ilaahay la rumaysnaayoo liitay waayo iimaanku hadduu kordho aakhiriya ilaahay la rumaysanyay isagaa keena inuu qofku daacada markaa badiyo cabsidana ku kalifo oo macaasida ka fogaado walidalik buu nabigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ku yaalay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min buu nabigu leeyahy walaa yashrib alkhamra xiina yashraba wahuwa mu'min ma diidanin oo ma ka tirsanin khawaariji le macaasidu iyo iimaanku ma wada kulmayaan oo kii khamriga cabay ee ilaah iyo rasuulkiisa jeclaa nebigu wuxuu uhi laa talcanhu fainahu yuxibu allaha warasuulah aslu liimaan ma dafirsanin laakiin inaad macaasida qadarkii kaa kaxayn lahaabaa maqan ayuha alikhwa cilaajku markaasi wuxuu yahay inaynu iimaankeenna dib u dhisno saxaabadan aynu ka warramaynay intaanay qur-aanka akhrisan baa iimaanku galay
قرآن كما إنتانو كو بدنين قرآن بدني بما ككما سودقين مركي إيمانكو قلي وكسنة الصحيحة ابن عمر وليه عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن واختانوا النولي بيقولوا متكايو إيمانك اللي سينشرين تان قرآن كلا سينين يعني علمك بدندي سما هين إيمانك بدندي سا واحتريي كو إيمانك سو حوغية قرآن كم بائنا بري سيدا لو حوغية قلبه وحا قلبي بلو يري تقلب كيس هي النسيان بدندي سي لو شيء بدندي وحوبة هين حصوصة اللقوع العلية إلهي ساد رادت قرآن كوينو قوع العلية آخره يا جهنم يا عذاب كده وينو قوع العلية جنة يا النعمة طالة وينو قوع العلية إلهي وينديسه إلهي وينو قوع العلية سواء آخر لنا حصوصين إن ساعة آتية أكاد أخفيها وكل أرت إلهي والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق أنت إلهي دارتي وحاصر داره يا إلهي وحلي وحلي يبو هيوانا وإن الدين لواقع قيامنا ودعية إلهي سبحانه وتعالى نبي سولي وغدار وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي نبي محمد بلى لي أدنى داروش لتأتينكم إلهي سبحانه وتعالى إن بضنبوا إنوقع العلي إنو شاق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مصحف كقرآن كهدات ركركته بيج إلهي وينيدي سي جنية النار كم غنطي ومالين ما ينتكسو هلس لح بقول يا فرت بيج وككوبية هي خادم الحرمين وكانوا ضابعي هدات بيت ساو ركتو مالين ما يبيت أن ربي كورميني وينيدي سي عظمة سي لقى بغضه أما أن كورمينين جنة النار إن لقوع العلية وطريق قلبي قال له الدورية dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno in la xasuusiyo in loo tafsiiliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala quraan badan buu soo dejiyey caaisha waxay tilmaamaysaa quraanadii ugu horreeyay nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedii quraan janno iyo naar ka warramaya quraan janno iyo naar ka warramaya وإلهي سبحانه وتعالى مدنا كو عبسين مدنا كو هنقور قلينيو وحي ugu horeeyo quraanka soo dagaabay leedahay haday xalaal iyo xaraan noqon lahaa dadku waxay oran lahayn waligeey zinada kama tagayno iyo waligeey wax khamriga ma daynayna oran lahayn laakiin kuwa lama soo horeysiin waxa la soo horeysiyay janno iyo naar iyo ka warankeed waxa la soo horeysiyay suuratu mudaththir oo ilaahay ku dhaartay inuu ka waramaysa innaha la ihda al-kubar ku jirto waxa la soo horeysiyay quraan cibaadada ka waramaya in la istaagiyo habeenkii la kaco ya ayuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu ilaahi subhanahu wa ta'ala ulayhi kan istuduubaya iyo saxaabadii ba istaaga habeenkoo dhan in yar mooyaane ama badhki ila la soo gaarsiiyay inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qila ضعفك إيمانك وحا دوية دتك والله حصوصية وحا آخرة ضمباية وحا جنة إيا النار كورمش